barakaad ku soo dhawaada janaalka Saleyka. Waxaan sharaxay part 4 direct question maadada English ka fasalka form 4 qaybaha ugu horeeya waa direct question. Waxaan ugu sharaxayaa 10 marks su'aalaha ugu horeeya waxaan what's oral poetry waxaa lagu magacaabaa. Su'aasha waxay noqonaysaa what's proposition, saddex waxay noqonaysaa what is recipe, afar waxay noqonaysaa what define adjectives, shan waxaa la markaas what's simile. Jawaabaha soo mara meel tagana meel goona ku diyaariye. Part 4 waxaan ka hadlaynaa markaas complete the proverb is below 10 marks waxaa lagu sharxaa markaasi waa 10 dhibco lagu bixinaa. Waxaa dhamaystirtaa markaas maamaayan soo socda. Look before people who live in a glass house waxaa la markaasi saddex let's live in dog. Afar waxaa la markaas you can lead your horse to the water. Shan waxaa la markaas many handies. Lix waxaa la don't charge a book. Toddoba waxaa la markaas there is no smoke. Sideed waxaa lagu dhahay when the cat is away. Lambarka sagaalaad waxaa la markaas too many cookies. Lambarka tobanaad ugu dambeeya waxaa la markaas where is a whale. waxaan tayna wajaaway si toos ah qaybta ugu horeysa waa part 4 direct question waxaan noqonaa markaas answer-ka asla bixiyana. Lambarka waxaa la markaas what is oral poetry waxaa lagu qeexaa markaas oral poetry is a kind of poetry that is composed and transmitted orally without the aid of writing. Lambar labaad wuxuu ahaa what is proposition maxaa la lahaa qeexitaankiisa. Some propositions go with a certain words to form phrases. Lambar saddexaad waxaa noqon what is recipe maxaa lagu qeexaa. jawaabta waxay noqonaysaa markaas recipe is a simply a set of guidance of or ama instructions with a list of ingredients for preparing or making a given dish or meal. Lambarka afraad wuxuu noqon markaas define adjectives words that go with a noun and tell us something about them are called adjectives. Lambarka shanaad wuxuu noqon what's simile maxaa la lahaa a figure of speech involving a comparison between unlike things using like as or as though. waxaan ka leeyahay part 4 it complete the proverb is below 10 marks lagu sharxay lagu bixinayo tunu weerarka markaas meelaha badan bicis waa meelaha bond saaran ama hoos ka xariiqan. Takood waxay markaas look before you leap ahead. Laba waxaa la markaas people who live in a glass house should not start throw stone. Lambar saddexaad waxay noqon let's live in dog lie. Lambarka afraad you can lead your horse to the water but you cannot make it to drink. Lambarka shanaad waxay noqon markaas many handies waxaa lagu dhamaystiraa markaasi make work lighter. Lambarka lixaad don't charge a book by its cover. waxaa la toddoba there is no smoke without a fire. Lambar siddeedaad when the cat is away mice will play. Lambarka sagaalaad too many cookies spoil the broth. Lambarka tobanaad ugu dambeeya where is a wheel before the broth. waxaa kaasina ugu baxay markaas qaybtii afraad ee qaybtii shanaad direct question iyo meelaha banabiciska ah maamahayada. Si aad ila socoto subscribe sar asxaabtaada kugu xiran gaarsii kuwa fasalin iyo kuwa kaleba sini sangrey waxaa kale si dhimaadooyin kale oo dhigan insha Allah. Assalaamu calaykum.